كون وفي عن المال كشان كرو هذا الكي financial advice مع كانتن كواد حق لايو رندر كانت لو حق لايو اكاش نتورك كانس دحات حق لايو نير بروتوكول كانت افراد حق لايو ايوس نتورك كان شنات حق لايو اوراي شين هديتها العقد بدن اي تاي investment سمي كرتا هدارتنا او العقد اي يرتاي تريدنا سمي كرتا سالعقد او كورديست تفهم اوكي ان سؤال كلي aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka crypto ma waxay u baahan tahay barasho gaar ah sida suuqa forex oo kale mise waa wax iska fudud oo qof kastoona baran karo yani muddo intee leeg ay qaadan kartaan inta uu qofkan daraasinayo ama baranayo qofka ku dadaalayo ee baranayo muddo intee leeg ku qaadan kartaa سؤال في عمل تاسيتي برشة رون أنتي كريبتو كرنس وحاجة برشة أوجار واي وحاجة كارتا وقت بدن إنها جلست ساعة وفهمت كريبتو نلوش وحاجة بط واي حاجة علمي جسم مرة marka qaabka oo ugu fudud ama qaabka oo qofka uu ku baran karo runtii adiga 3 bil ilaa 6 bil waxyaabaha asaasiga dhan waa baranaysaa wixii ka dambeeyna waxa khibradii waayday wixii aad soo baratay inaad practice ahaan u samaysid aad fahantid kadib inaad aad si guud gashid okay laakiin markii laga hadlayo qaabkan long term investmentiga ama maaragtay qaabkan day trade ka oo kale yani barashadeedu waa yani ma isdhihi karnaa muddo hal bil qofka uu ku fahmi karaa misana sida sheegtay 6 bilood waa inuu qofka maaragtay crypto gacanta ku hayo intuuna lacag gelinin maya barashada horta ko inaad crypto aad fahantid waxa 6 bil ku ma qaadanayso waxa muddo kooban ay ku qaadanaysaa qof walba fahamkiisa waxyaabaha kiri inaad fahantid crypto inuu jiro blockchain waxa seeti waxyaabaha asaasiga laakiin practice ina si fiican u fahantid waxa waqtiga ku qaadanaysaa so qofka ilaa 3 bil waxyaabaha asaasiga dhammaana uu fahmi karaa oo trading uu sameyn karaa investment ayuu sameyn karaa waaladooyinka si uu shaqeeyaan taxi si wax loogu gato waxyaabaha si dhammaana oo waqti qaadanaya way inaad fahantid kaaga baahan inaad waqti agelisid inaad practice aad gelisid laakiin faham guud muddo kooban ayuu ku qaadanaysaa isbuuc laba isbuuc kaliya faham aad daartid waa ka fahmi kartaa okay waa tahay su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo oo aad kana muhiim ku ah ayaa waxay tahay sida ogsoonahay waxa jiro platformyo maaragtay crypto oo ay macnaha la galo si crypto aad u isticmaashid ama maaragtay u iibsatid sida Binance oo kale sida Coinbase oo kale so adiga platformke ugu fiican aad isleedahay oo aad ku talinaysaa ama qofka uu isticmaali karaa طبعا انا اكسنجل بدنا استعمالها لكن كانت كوات waxa ku jiro Binance maadaama oo de wadanka uu ku shaqeynayo asaa uu fiican maanta hadaa ku dhaho Coinbase isticmaal aad wadanka aad joogtid Coinbase ma isticmaal kartid so wixii markaas adiga oo isticmaal kartid oo kugu fudud ama kugu dhow kaasita isticmaalaysaa hadii oo Mareykanka aad joogtid amal Coinbase isticmaal kartaa sababtoo Binance kama shaqeeyo waxa isticmaalaan Binance US laakiin hadaa dalka aad joogtid Binance waxa ay NFI okay wuxuu u baahan yahay sida ogsoonahay maaragtay marka platformyada marka ku biiraysid requirement-ya jiro soo muxuu u baahan yahay oo qasab ku ah marka qofka si uu platformyadan u isticmaalo ama uu soo biiro waa su'aal aad u muhiim ah arintani sababtoo ah su'aalaha yani qofka meesha ugu horeyso ka bilaabayo horto waa inuu platform helaa ama meel oo maaragtay si uu maaragtay oo crypto u iibsado ama maaragtay oo suuqi maaragtay uga faa'iideysto soo maxaa waxyaalaha asaasiga u baahan yahay maxaa kamid ah waxyaabaha asaasiga waxaa kamid ah horta qofka inuu jirnaado 18 sano hadaa 18 sano ka yartahay waxa daad oo qaangaarka ay ma gaarin soo akoonta kama furan kartid kuwa shuruuda koowaad inaad 18 sano jir aad tahay sharadka labaad oo ah inaad aqoonsi aad leedahay sida passport camal hadaa Soomaali aad ku nooshahay passport NFI passport hadaa heshid kadib waxa u baahan tahay kaar bangi macnaha ama qaab oo lacag ugu shubo lahayd دولار استعماشها من يورو استعماشها لعقتها سيتو حافية وحارتها مركا كريبتو آن إنها أسوق جلست أو باني مركا كاربنجي سو كاربنجي وحوالي شروط أو سدحات أو بان تايب كده بحوالي دي إنا علمي سأدبرتت you're good to go أسف يعني أوكي وحان كلا سؤال كلا عن رو إنا كويدية مركا وحي تهاي maadaama aan xooga saareyna dhalinyarada iyo maaragtay dadka iskuulada iyo jaamacadaha dhiganayo meeqa lacag ah ayuu qofku u baahnaan karaa soo u bilaabo crypto ama day trade ka ahaato ama maaragtay long term kaas laftirkeeda ha iska ahaato yani lacagta ugu yar oo qofka maaragtay suuqan ku soo gali karo yani maxaa is leedahay exchange ahaan lacagta ugu yar oo ku soo kartida ah $15 طبعا تريدنج وحاجة دارتت إنك بدنا وكشوا كرتا خفال بأسي الدروكتيس لكن $100 $100 وكوبلا وكرتا. أوكي سفيان. سو قفك $100 $100 وكوبلا بكرا لكن لعقت أوير وقفك هذا نكوش بنكره وعشان $10 إلى $10.
$15 Binance $15 ayaa ugu yar qofka maaragtay day trade-ka oo kala sameynayo kuna bilaabay lacag yar meeqa ayuu macnaha maalinkii ka sameyn karaa maadaama day trade uu sameynayo maxay kula tahay lacag yar oo qofkan ku bilaabay